qurux ku dhiigle suu u waday suu u socday maariish maalimo dhan hataa ma maqnaya siduu u socday maalimaha waxaa arkaynaa inuu la dhoola caddeynayo gabar cuswan magaceeda oo qarsaneen misbaax official maariish beauty maalimaha hataa ma maqnaya isbuuc hataa ma gaarin maxaan idhaha maalimo kadib waxaa arki doontiin maariish markay baxdo qurux ku dhiigla oo qof cuswan faan gareynayo dad badana commentii kusoo qorayeen gabadha walaalo waaye asxaab waaye asxaab ma saas loola dhaala caddeeya miyaa saas loogu qoslaa gabdhahay fahmi karaan ayaa i fahmi karaa faaniska ku xiran oo maalimahan dambe arkeen qurux ku dhiigla iyo misbaax waxay sameynayaan adiga ma ka heshay mise waxaan waa jiliin oo anagana lagu waalayo timaariish saaid ayay u xanaaqeen qurux ku dhiigla iyo misbaax waxay ku sameynayaan youtube-ka anagoona og jecel social media inay real ahayn ayaa xanuunkii waxaana hayaa walaashin maariish booskeeda qof qaadan kara ma laha ani misbaax mala yaabni caadi ay iska tahay dadka videoyaasha daawanayeen misbaax caadi iska tahay si u duuwe si u hadlayso laakiin ninka ka badbadinayo xataa qosolka sii dheeranayo waa qurux ku dhiigle markuu sii qoslo aniga dhana gubto waxa u guwanayana ma garanayo war xitaa zoom aan dheh zoom waxa dhahaya ninkan muxuuse ugu qoslaya laakiin muxuu u badbadanayaa si speedka inuu yareyso maaha tabti maariish maalimuhu bilaabaya xiisihii wixii ayuu haddana misbaax la soo galay isma ogo xitaa inay waxaan kaamera tahay lagu duwaayo isma ogo muuqaalkan intaan hor u gelin reactionkan intaan hor u gelin waxaan rabaa dadkii igu cusban hadaa channelka ku cusub tahay 20,000 wax yar ayaa iga dhiman fadlan subscribe wax badan ma kugu qaadanayso waa gacantaada yar dhaqaaqday anigana dhiirigelin ayay noqonaysaa gabdhaha masiiraan sirka level uu leeyahay 1 2 3 videogan markaan bogo iniga ogaan doontiin masirkayga level kee waaye maalimahan dambe oo aragteen maariish waa baxday sida u ogtiin inta badantiin yacni many of you waa ogtihiin maariish iyo qurux ku dhiigle bluetooth-kooda disconnect u noqdo way kala tegeen laakiin maariish gabadhan cusban misbaax ee marmar qaar video isla soo dhigi jireen maalimahan dambe ay maadaama maariish joogin ay muuqaalada isla soo duduwaan siduu kuna noqonaya ila arkay ani keliya miya mise gabdho badan ayaa iska jira ragga waxaan ka hadlayaa tadayna ogeen waani fahmi karaa juku ka cayaatiin qaarkiin because jaceelka aniga naloo daaya inuu waxa dhinaca jaceelka sayid ugu fahamtiin madax gabdhaha qaar miila aragteen videoga ay soo saarayeen oo aamiin qurux ku dhiileen iyo misbaax isla joogeen aamiin caadi u ahaa laakiin ninkii badbadanayay qurux ku dhiiglayuu ahaa waa la yaab war gabadha 5 maalin hataa ma maqnayaa isbuuc hataa ma maqno haddana sidaa u qoslayso doola cadeen excess ah oo laga baahnayn xitaa waa ilooysaa waxaan inuu kaamere ani kuma necbani laakiin waxaa ka go'anayaa dhinac kaleeto sidaa noqonaysa saa u qoslayso qosol xad dhaaf ah
sidii markii maariish markaa muuqaalo isla duubi jirteen ayaa sameynaysa. miyay fiican tahay? mise social media xataa hadaa ku jirto gabadhaadaba ma seerayso. ani maariishada ahaa lahaa 5 maalin istaalka iskaga jiri lahaa haddaa arag qofkii dhannaa oo intaasa waqti isla soo qaadane dhoola caddeyn qosolka badbadis ah gabar kale ku sameynayo. xitaa gabadha walaalnimo ay ka ahaato, misbaax hooyadiis ma dhalin, walaashiisna ma dhalin, inuu saan ku qoslo miyay fiican tahay? mise anaa xanuunsano dhinaca masiirka said access igu ah, qof kale uma seera, aniga iska dhaafiyaa qofka kale ayaa uma seeraya. aamiin caadi iska yahay. haddaa videogan ka hadlayo waa videogan, aamiin caadi iska yahay, ma qoslayo. hadda hadduu qoslo yacni si laakiin saaxiibka qurux dhiigle indhihiisa 2 indhood bini'aadanka leeyahay, laakiin asaga 10 indhuu leeyahay videogaas. like bro, ano videoga taa ma dhamaysan, wallahi waa dhamaysan waa videoga isma dhamaysan. waxyaraas u socday, waxyaraas u fiiriyay, waxaan arkay saaxiibka inuu ka badbadinayo screenshot inaa qaado tiktok. ani kaliya miya wiilkan muxuu saa ugu qoslaa? mise ragga ayaa wax walbo cusub jecel yihiin inay xiiseeyaan. midii hore isla soo rafaadeen oo maanta isla dhisteen malaayiin ayadoo hataa maalimo maqaneen ayaa midoo cusub meela ka imaata la garanaynin qosol feeg ee acting iska soo saare. waxa cusub waa jeceshiin miya? yani waa xiisiisiin qofka hadduu cusub yahay waa xiisiisiin miya? sida gabdhaha camal ma aha qofkii isla socday inay isgaranayaan ay la soconayso. qurux ku dhigl caadi waxaa arkaysaa videoga inuu kala badbadanayo, aamiina kula duwaya oo wiil same as you wax isla sameynaysiin. saas mana noqonayo, adig hadda dhaafa waxaade midda ku jeclaato. I think bil walba isbuuci walba hadaa iska dhaho 3 jeer istaalka way tagtaa, gaasaa laga daaweeyaa. gaas ayaa laga daaweeyaa. gabdhaha daawanayo videoga markaa daawanaysay mise caadi oo faan ahaana u daawanaysay mise meela ku xanuunaysay. dad badanaa commenti kasoo bixiyeen qurux dhigna maxaa kugu dhacay maariish isbuuc ma maqno, isbuuc ma maqno, badbadiskan maxaa waaye? goormee gabadhan isku xirateen? aamiina video kula duwaa saas ma dhahaya, adig maxaa ku hayaa? waxa ku dhigla ani ma necbaniya ha ii maaninadin maxaa u caynaysaa wiilka? maya ani waxaa la yaabo le suuna noqonayo ee ku tusinayso dirac walbo cusuban uu iskala jaan qaadaa.